shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Dancadda ee magaalada Muqdisho ayaa maanta dhigay dibadbax ballaaran oo ay ka cabanayaan maamulka gacanta ku haya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Dibadbaxayaasha oo u badnaa dhalinyaro ayaa warbaahinta u sheegay inay ka cabanayaan mid ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, taasi oo laga leeyahay dalka Turkiga. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay cadaalad darro ka tirsanayaan maamulka shirkadaha ka howlgala garoonka diyaaradaha Dancadda ee magaalada Muqdisho, iyagoona dibadbaxayaashu si gaar ah eedda ugu jeediyay laba nin oo u kala dhalatay dalalka Kenya iyo Uganda, kuwaasi oo ka mid ah mas'uuliyiinta gacanta u haya shirkadda diyaaradaha garoonka magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa ay tilmaameen in ay shaqeeyaan saacado badan oo aan ku jirin waqtiga shaqada ee lagula heshiiyay. Dhalinyaradan Soomaaliyeed ee ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee maanta shaqo joojinta sameeyay ayaa waxay baaq u direen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyaga oo dalbaday in ay soo farageliyaan arrinkan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Anoo ku hadlayo afhayeen u ah shaqaalaha Fayfuri ku hadlay magacooda, waxaan u sheegaynaa dadweynaha Soomaaliyeed in dhibaato culus loo geystay dad masaakiina oo shaqaale ka ah airportka oo xamaaliyaal iyo kuwa dhulka nadaafiyo iyo waxyaabo qaybo badan isugu jiray. halkaas ay bahadilaad kala kulmeen niman Afrikaan oo xafiisyada hoose joogo oo u kala dhashay dalka Kenya iyo Uganda, kuwaasoo mar walba waxay sameeyaan rabaan dadka baadaan dhacaan qofku ku jabto qofku ku dhacmato xuquuqda intaba diidayin. qof walba oo Soomaaliya oo arrintaas wax ka gasho amba ka dhiidhi karto inay naga soo gaarto. marka uu camanay maamuladii ka jiray airportkana wax gaar ah inoo muujiyeen ma jirto. dhibaatooyin culus oo baahsan ayaa haysto dadka Soomaalida. 4 bilood wax mushaarana lama siinin, guriga lagu yeeshay, raga xaaskoodii kala tageen. dhibaato culus ayaan waay cid kasta oo Soomaaliya oo amba madaxa amba waxgarada amba cubaadiina amba dumar leh amba qof yar qof weyn inta waxaan ka codsanaynaa Soomaali in meeshii anagna laga soo ceyriyay niman Kenyaan iyo Ugandans ay ka shaqeynayaan ay ku dibadda dhawaayaan. Soomaaliya adinka arrintaas idin taala anaga waxa la waaweynay waxna garab istaag ilaa hadda ma hayno. madaxda dawladda waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas soo farageliyaan. dhibaato halkaas ka jirto, dhibaatadaasna waxaan ugu hayo niman Kenyaan iyo niman Ugandans oo nimanka Turkida ay meesha wakiil ugu soo dhigteen. nimanka Turkidana waa niman isla weyn oo dadka lama hadlaan Soomaalida. una taagan barxaddan in ay helaan xuquuqdooda asaasiga. shirkadaas oo aan u shaqaynaynay muddo 8 sano ah waxaanu ka tabanaynaa cadaalad darro aad u fara badan. walow ay isbedeleen maamullo badan oo Turkish oo hadba nin cusub la keenayo, maamulba maamulka ka dambeeya waa idinkaga roonaa doonaa ama waa ka wanaagsanaa doonaa ama mushaarka ayay idin kordhi doonaan meesha aan islahayn. maamulba maamulkii ka dambeeya waa nooga tacaddi iyo cadaadis iyo goodis badan yahay. sidaas la adligeed maamul kasta oo yimaada wuxuu naga dul keenaa niman kale oo Afrikaan ah oo aqoonta markaas ay ku shaqaynayaan ay qaban karaan rag Soomaaliya oo jooga oo shaqaalahan ka mid ah. dawladda Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa dadkeena qofaan dad lahayn ma jiraan. macnaha dad aniga noogu imaadeen, aniga garoonkan anigoo ka shaqaynayna ayaa iyaga noogu imaadeen. ma ahayn aniga dad ayaga ay banaan ka soo qorqorteen, anigu ma ahayn. anigoo shaqaynayno shaqadii wadno ayay noogu imaadeen ay nagu soo kordhigeen. waxaan la shaqay jirnay qolo anigoo shaqaale elboor ah oo idhikaar elboor haysano ayay noo imaadeen. idhikaarkeena intay qabteen ay naga jarjareen, idhikaar kale ay noo sameeyeen oo faafuura. marka saan u shaqaynaynay kambani la yiraahdo iska ayaan u shaqaynaynay. iska ay anigoo u shaqaynayna ayay noogu dul imaadeen. oo inoo imaadeen kaararkii aan haysanay naga arwarsheen, kaarar kale ay noo sameeyeen. maalinba waxay rabaan ay noo sameeyaan. macnaha qofkii ay wax ka arkaan waa iska burnaayaan. aniga hadda maanta bisaan miidiyaha aan u hortaaganahay hadday maqlaan codkayga ay maqlaan ruqsaataay ileeyihin way isoo ruqseenayaan. marka dhibaatadaasaan ku qabnaa. qofaan dad lahaynana ma jiraan. anigu dadaan leenahay, dawladaan leenahay, war maamulaan leenahay. maamulkeena iyo dadkeena iyo dawladdeena waxaan ka rabnaa macnaha cawashadeena inay na tixgeliyaan oo na qiimeeyaan. muwaadin Soomaaliyeedaan nahay, dhulka xaqaan u leenahay, caradaan leenahay, anigu ciiddaasaan leenahay.